xalqadda lixaad waxay ku bilaabanaysaa ka hor inta aysan bixin. Jaya waxay u tagtay hogaamiye Kanga si ay gargaar u weydiisato. Hogaamiyaha iyo askartiisa waxay u ordeen goobtii dhawaaqa uu ka yimid, balse Ivan ma aysan arkin. Waxa kaliya oo ay arkeen raadad gacmo oo dhiig leh oo dhulka yaala. Markuu dareemay inay wax qaldan jiraan, hogaamiyaha si degdeg ah ayuu ugu sheegay askartiisa inay gargaar u soo wacaan. Waqtigaas Jaya keligeed ayay la dagaalamaysay niman dambiilayaal ah. Hogaamiyaha ayaa goobta u soo cararay. Wuxuu qori ku cabsi geliyay dambiilayaashii si Jaya ay u baxsato oo ay u raadiso Ivan. Dhanka kale, Hansik wuxuu isu diyaarinayay inuu baabuurkiisa raaco oo uu baxsado. Markuu arkay wejiga Somik, aad ayuu u baqay. Si lama filaan ah ayuu baabuurkii u istaagay. Hansik madaxa ayuu kor u qaaday, wuxuuna arkay Ivan oo hortiisa taagan. Cabsi iyo caro isku mar ah ayaa ku dhacday. Markaas ayuu ku amray ninkii inuu si toos ah ugu soo jiido baabuurka Ivan. Xilligaas halista ah, Jaya ayaa waqtigeedii ku timid oo Ivan dhinac u riixday. Markuu Hansik arkay in labadooduba ay weli nool yihiin, wuxuu ku amray ninkii inuu gadaal u celiyo baabuurka oo mar kale uu ku jiido. Laakiin isla markiiba baabuur booliis ayaa soo muuqday. Ninkii Hansik la socday wuxuu ku qasbanaaday inuu si degdeg ah uu Hansik ula baxsado. Ivan oo uu qabsaday ruuxan Somik weli wuxuu rabay inuu daba ordo Hansik, balse markuu arkay timaqabsigii oo wadnaha kaga mudnaa, xusuustii Somik ayaa maskaxdiisa soo gashay. 20 sano ka hor, Hansik ayaa si xoog ah uga buriyay qoyska Somik dhammaan dhulkoodii. Markii ay rabeen inay garaacaan hooyada Somik, isagii ayaa ka hortagay si uu u difaaco. Taas beddelkeeda, nimanka Hansik ayaa si arxan darro ah u garaacay Somik. Maadaama ay ahaayeen dad sabool ah oo aan awood lahayn, ma aysan hor istaagi karin Hansik. Dulliga iyo xadgudubka ay la kulmeen waa ay u adkaysan jireen oo keliya. Kadib markii la garaacay Somik, Hansik wuxuu ku amray inuu gubo tuulada oo dhan. Wuxuu u ballan qaaday inuu siin doono dhisme dabaqyo ah magdhow ahaan. In hooyadiisa iyo Ivan adeerkiisa ay helaan guri waxay ahayd riyada ugu weyn ee Somik, sidaas darteed wuu ogolaaday. Isla markaas Somik wuxuu ka codsaday Hansik inuu u qoro warqad damaanad ah. Hansik wuu ogolaaday asigoon ka fiirsanin. Maalintii xigtay, Somik wuxuu shidaal ku shubay guryihii tuulada. Isla markiiba tuuladii dab ayaa qabsaday. Qaylada iyo oohinta dadka tuulada ayaa meel walba ka soo yeertay. Kadib, Hansik wuxuu ku amray Somik inuu qoro warqad qirasho ah, isaga oo dusha ka saaran dhammaan dembiga, wuxuuna u sheegay in sidaas uu ku heli doono gurigii loo ballan qaaday. Laakiin Hansik wuxuu siiyey Somik cabitaan, wuxuuna ku yiri cab oo seexo, kadibna guri cusub ayaa lagu geyn doonaa. Markii Somik uu cabay cabitaankaas, mar dambe ma uusan soo toosin. Hadda ruuxaantii Somik wuxuu ku sigtay inuu baabado, balse weli wuxuu xiisaynayay gurigaas, maxaa yeelay gurigaasi wuxuu ahaa waxa keliya ee uu uga tegay hooyadiisa iyo Ivan. Intaas kadib, Somik wuxuu ka baxay jirka Ivan. Wuxuu arkay Ivan oo ilmeynaya, kadibna ruuxaantii Somik si tartiib ah ayuu u burburay ilaa uu hawada ku milmay. Markii Ivan uu ogaaday sababta dhabta ah ee adeerkiisa uu u dhintay, wuxuu dareemay naxariis iyo murugo adeerkiisa dartiisa ah. Isla markaana nacayb aad u daran ayuu u qaaday Hansik. Hansik ayaa ahaa qofkii ka qaaday adeerkii keliya ee dunida uu ku jeclaa Ivan. Maalintii xigtay, Ivan wuxuu ku soo toosay isbitaalka. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u sheegay Jaya in xusuustii adeerkiis aysan ku jirin wax xusuus ah oo ku saabsan hooyada Jaya. Arrintan aad ayay uga yaabisay Jaya. Somik wuxuu ahaa raadkii ugu dambeeyay ee Jaya ay u haystay si ay u ogaato runta dhimashada hooyadeeda. Laakiin hadda halkaasna wax raad ah kama soo harin. Markii Ivan laga sii daayay isbitaalka, wuxuu ku noqday guriga si uu u raadiyo warqadaha damaanadda. Wuxuu rabay inuu u aargudo adeerkiis, isla markaana Hansik la marsiiyo ciqaabta uu mudan yahay. Si lama filaan ah, markuu guriga galay, wuxuu arkay ayeeyadiisa oo miyir beeshay. Maalintii xigtay, markii Ivan uu soo toosay, wuxuu arkay ayeeyadiisa oo doonaysa inay guriga ku laabato. Waxay tiri, waxaan rabaa inaan gurigaas ku dhinto, ma doonayo inaan isbitaal ku dhinto. Ivan wuxuu u sheegay ayeeyadiisa runta ku saabsan dhimashada Somik. Ayeeyada ayaa Ivan ku eegtay qoomamo iyo ceeb weyn. Muddo dheer waxay rumaysnayd in Ivan oo ah nin ruuxaano la macaamila uu dib u geystay Somik. Ayeeyada waxay ka codsatay Ivan inuu iska cafiyo qabowgii iyo adeygii ay hore ula dhaqmi jirtay. Habeenkaas ayeeyada riyo ayay ku aragtay Somik oo albaabka hortiisa fadhiya. Sidii hore ayuu haddana ugu yeeray isagoo kule hooyo. Sanado badan kadib, ayeeyada ugu dambayn si farxad leh ayay u dhoola cadaysay, waxayna ku nagaatay riyo qurux badan oo weligeed aysan ku haminin. Dhanka kale, kaaliyaha Jaya ugu dambayn waxay ku dhawaatay in laga sii daayo isbitaalka. Jaya waxay tagtay gurigeeda si ay ugu soo qaado dhar. Laakiin markii Jaya ay raadinaysay dharkii, waxay si lama filaan ah u aragtay sanduuq meesha yaala. Jaya si tartiib ah ayay u furtay sanduuqa. Gudihiisana waxaa ku jiray buuggii diiwaan saarista jinniga, kaas oo lumay tan iyo sanadkii 1979. Jaya ma aysan fahmin sababta uu buuggaasi u yaallo guriga kaaliyaha, sidaas darteed waxay si degdeg ah ugu dhaqaaqday isbitaalka. Waqtigaas kaaliyaha waxay sugaysay Jaya iyadoo niyad jabsan. Markay ogaatay in Jaya ay u keentay dharkeedii, waxay fahamtay inaysan mar dambe waxba qarin karin. Markii Jaya weydiisay sababta buugga saarista jinniga uu u yaallo gurigeeda, kaaliyaha waxay tiri, buuggaasi wuxuu ahaa hanti ay ka tagtay hooyada Jaya. Waxay sheegtay in boolisku ay siiyeen maalintii shilka hooyada Jaya uu dhacay. Waxay sidoo kale u sheegtay dhiigga buugga ku yaal uu yahay dhiiggii hooyada Jaya. Laakiin xusuusta Jaya, hooyadeeda maalintaas ma aysan dhiigi bixin haba yaraatee. Kaaliyaha waxay tiri xusuusta Jaya ee maalintaas ma ahayn mid run ah, balse waxay ahaayeen xusuus been ah oo Jaya ay maskaxdeeda ku abuurtay si ay nafteeda u difaacdo. Jaya arrintaas ma aysan rumaysan. Dareenkeedii wuu kala yaacay, aad ayay u xanaaqday, waxayna bilowday inay necdo sirtii ay ka qarisay kaaliyaha. Ugu dambayn, kaaliyaha wuxuu ahaa qofkii keliya ee Jaya ay si dhab ah u aamini jirtay. Kaaliyuhu waxay rabtay inay Jaya wax walba u sharaxo, laakiin Jaya weli aad bay u xanaaqsanayd. Sidaas darteed, wax kasta oo kaaliyuhu uu yiraahdo ma rumaysanayn.
Jaya iyadoo xanaaqsan ayay go'aansatay inay iyada qudheedu runta soo baarto. Buuggii saarista jinniga wuxuu si cad u qoray habka loo ciribtiro jinka wejilaanta ah. Maadaama jinkan uu ka samaysnaa ruuxaan xanaaq iyo argoosi ka buuxa, nacaybkiisu aad buu u xoog badnaa. Hababka caadiga ah ee saarista jinniga waxba kama tari karin. Habka keliya wuxuu ahaa in timo qabsi aan magac lahayn lagu mudaayo wadnaha. Laakiin haddii sidaas la sameeyo, isaguba wuu dhaawacmi lahaa, xitaa wuu dhiman lahaa. Ma aha oo keliya jinniga, balse qofka saaraya jinniga wuu saamaynaya. Jirkiisana waa la qabsan karaa. Markaas ayay Jaya fahamtay runta oo ah hooyadeeda way ogeyd in maalinta ay jinka saaraysay ay nolosheeda lumin karto. Tani waxay si buuxda uga hor imaanaysay xusuustii Jaya ee ahayd in hooyadeeda ay u dhimatay labalabayn darteed. Sidaas darteed, Jaya waxay diyaarisay hawshii xigtay. Waxayna gubtay uunsi ay ku qortay magaca hooyadeeda si ay u soo wacdo ruuxaanteeda. Kadib Jaya waxay hooyadeeda si adag u qabatay, waxayna gashay xusuustii habeenkaasi. Laakiin xusuustu weli sidii hore ayay ahayd. Inkastoo muuqaalkan marar badan maskaxda Jaya uu ka soo muuqday, markasta oo hooyadeeda ay timo qabsi ku mudayso, Jaya ma yeelan jirin geesinimo ay daawashadaas ku sii wado. Jaya waxay ka carartay runtaas, waxayna sii gashay xusuusta hooyadeeda. Markaas ayay aragtay in gacmaha hooyadeeda ay dhab ahaantii dhiig ku daboolnaayeen. Laakiin weli taasi ma aysan ahayn runta ay rabtay. Heerkulka jirka Jaya si tartiib ah ayuu hoos ugu sii dhacayay. Aad bay u tabardaraysay. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku dadaalaysay inay sii wado gubidda uunsiga si ay u aragto runta dhabta ah. Markan Jaya iyadoo nolosheeda ka fikirin, waxay mar kale si adag hab u siisay hooyadeed oo waxay gashay xusuusteeda. Halkaas ayay runta ka ogaatay, waxayna ahayd 20 sano ka hor dad ayaa keenay Iban oo yar, kaas oo uu qabsaday jinka wejilaanta ah. Waxayna keeneen shirkadda Diibak iyagoo ka baryaya hooyada Jaya inay jinka ka saarto. Mijin markay aragtay in jinka qabsaday ilmaha uu yahay jinka wejilaanta ah, waxay isla markiiba Jaya u kaxaysay dabaqa labaad. Waxayna ku tiri, wax kasta oo aad maqasho haba yaraatee ha ka soo degin halkan. Kadib Mijin waxay wacday kaaliyaha. Waxay u sheegtay in uu jiro ilmo uu qabsaday jinka wejilaanta ah. Si jinkan loo ciribtiro, Mijin waa inay dishaa ilmaha jinka uu qabsaday. Waxay tiri, waxaan dili doonaa ilmaha iyo jinkaba, kadibna waxaan tegi doonaa saldhigga booliiska si aan u qirto dembigayga. Adiguna Jaya ii daryeel. Laakiin nasiib darro, Soomik ayaa maqlay wada hadalkaas. Sidaas darteed, Soomim si degdeg ah ayuu Iban ula cararay. Hase yeeshee, Mijin hore ayay u qaadatay timo qabadkii aan magaca lahayn oo dibadda ayay u baxday. Waxay Soomik ku tiri, haddii jinka wejilaanta ah la dabar goyn waayo, musiibo ka sii weyn ayaa dhici doonta. Laakiin Soomim arrintaas dan kama aysan gelin. Marnaba ma ogolaanin in Mijin ay waxyeello u geysato Iban. Markay Mijin aragtay in jinka wejilaanta ah uu bilaabay inuu soo tooso, ayay iyada oo aan ka fiirsan khatarta hore ugu booday. Labadoodii waxay bilaabeen inay isqabtaan oo ay isjiidaan. Intii ay dagaalamayeen, timo qabadkeeda difaaca ee Mijin si kama ah ayuu uga dhacay. Jinkii wejilaanta ahaa fursaddaas ayuu arkay, isla markiiba ayuu ku soo booday. Markii jinku uu qabsaday jirkii, wuxuu noqday mid aad uga sii xoog badan. Bartilmaameedkiisii ugu horreeyay wuxuu noqday Soomik, sababtoo ah jinkan waxa uu ka samaysnaa 7 qof oo Soomik uu dab ku gubay. Xilligaas Iban wuu soo toosay. Markuu arkay Mijin oo jinku uu qabsaday, aad buu u baqay, wuuna suuxay. Jaya waxay maqashay dhawaaqyo yaab leh oo ka imaanaya dabaqa hoose, waxayna si tartiib ah uga soo degtay dabaqii. Markay aragtay hooyadeeda oo xaaladaas ku jirta, cabsi darteed ayay dhulka u fadhiisatay. Mijin markaas si tartiib ah ayay ugu gurmanaysay Jaya, iyadoo jinkuna uu weli la dagaalamayay si uu jirkeeda u xakameeyo. Ugu dambayn, jinku wuu ka adkaaday, wuxuuna si buuxda u qabsaday Mijin. Jaya waxay aragtay timo qabadkii oo agteeda yaalay, wayna qaadatay. Waxay xasuusatay habkii saarista jinniga ee hooyadeeda ay hore u baraysay oo ah in timo qabadka wadnaha lagu mudo si jinku loo tirtiro. Jaya aad bay u baqday, haddana timo qabadkii ayay hooyadeeda ku soo jeedisay. Ma aysan ogeyn in hal muditaan ay qaadi doonto nolosha hooyadeeda. Markii Mijin ay dhimatay, jinkii wejilaanta ahaa isna gebi ahaanba wuu baaba'ay. Isla markaas kaaliyihii ayaa soo orday, wuxuuna arkay wixii meesha ka dhacay. Jaya oo markaas aad u yarayd, dhulka ayay fadhiisatay iyadoo si xoog leh u ooyeysa. Aad bay ugu adkayd inay aqbasho xaqiiqda ah inay iyadu dishay hooyadeeda. Murugo darteed, Jaya way suuxday. Waxaa laga yaabaa inay maskaxdeedu rabtay inay iska ilaaliso xusuus aad u xanuun badan. Sidaas darteed, qaybtan xusuusta ah si buuxda ayaa loo xiray oo waa la qariyay. Dhiiggii Mijin ee dhulka ku daatay wuxuu wasakheeyey buuggii saarista jinniga ee sanadkaas. Runtani aad bay ugu adkayd Jaya. Waxay dhulka u fadhiisatay iyadoo awood la'aan ah, ilmana ay ka qubanayeen. Waxay u malaynaysay in hooyadeeda ay ka tagtay, balse ma aysan filayn in iyadu qudheedu ay dishay hooyadeeda. Iban wuxuu arkay in wax aan caadi ahayn ay dhacayaan, wuxuuna u orday dhanka Jaya. Jaya mar dambe isma celin karin, waxayna ku dhacday gacmaha Iban. Habeen roobaad ah, nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Jack oo hal lug ay ka dhaawacnayd ayaa si tartiib ah u galay makhaayad. Haweenaydii meesha joogtayna waxay nadiifinaysay qalabka cuntada. Si lama filaan ah, nalalkii ayaa bilaabay inay halaabaan, kadibna way dameen. Iyadoo haweenaydii ay weli yaaban tahay, albaabkii ayaa si kedis ah u furmay. Jack ayaa si tartiib ah u soo galay. Haweenaydii aad bay ugu faraxday markay aragtay wiilkeedii ay habeen iyo maalin xiisaynaysay inay aragto. Iyadoo hadalkeedu uusan kala goyn, waxay ku canaanatay Jack sababta uu sanado badan ugu soo noqon waayay. Laakiin markay aragtay wejigiisa oo cirro ah iyo lugihiisa oo dhaawacan, qalbigeedu wuu jabay. Waxay u diyaarisay maraq daawo ah, kaas oo ahaa cuntooyinkii uu Jack aad u jeclaa. Isla markaas booliiska ayaa soo wacay. Waxay u sheegeen haweenaydii in Jack uu dhintay. Haweenaydii way soo jeesatay, waxayna aragtay in wiilkeedii isu beddelay ruuxaan aan cadaalad helin. Cabsi darteed, isla markiiba way suuxday. Maalintii xigtay, waalidiinta Jack ayaa yimid si ay u qaataan meydka wiilkooda. Labadooduba ma rumaysan karin in wiilkii ay in ka badan 10 sano sugayeen ay sidan ku arkaan. Aaska Jack waxaa loo sameeyey waqtigiisii. Iban
iyo Jaya ayaa maqlay warka waxayna tageen aaska. Markii Jaya ay dhamaysay foox gubidda waxay dareentay inay neef qabow ka soo baxayso. Iyadoo shaki qabta ayay gadaal u jeesatay. Waxayna aragtay ruuxaanta Jack oo taagan hooyadiisa agteeda. Intaa kadib Jaya waxay ku laabatay shirkadda Dibag. Laakiin goobtii waxay noqotay mid cidlo ah oo aad u qabow. Tan iyo markii Jaya ay ogaatay sababta dhabta ah ee geerida hooyadeeda ka dambaysa way isqarisay. Waxay muddo ku noolaatay meel ay ka buuxaan geedo aad u dhaadheer. Inta ay halkaas joogtay Iban wuxuu raadinayay Jaya balse iyadu weli ma awoodin inay cafiso. Runtii qofka ay Jaya ugu adkayd inay ka tanaasusho waxay ahayd iyada lafteeda. Aad bay ugu adkaysatay xiriirkii hooyadeeda taas oo keentay in inkastoo ay runta ogaatay haddana aysan aqbali karin ama aysan ka gudbi karin. Jaya waxay bilowday inay alaabteeda xirxirto. Waxay shirkadda Dibag ka iibisay shirkadda Golden sidaas darteedna waxay isu diyaarinaysay inay guurto. Xilligaas hooyada Jack ayaa ku laabatay makhaayadii. Maadaama wiilkeedii uu dhintay makhaayadii ay si adag u daryeeshay macne dambe uma aysan lahayn. Laakiin maalin walba waxay sii arkaysay ruuxaanta Jack. Ugu dambayn waxay tagtay shirkadda Dibag si ay wax uga weydiiso ruuxaanta wiilkeeda. Markay aragtay wejiga fikirka badan ee Jaya isla markiiba way fahantay. Mana aysan fahmi karin sababta wiilkeedu uusan ugu soo noqonin intuu noolaa iyo sababta uusan u bixin kadib markuu dhintay. Sidaas darteed waxay si taxadar ah uga codsatay Jaya inay ka caawiso in ruuxaanta wiilkeeda si nabad ah loo sabootiyo. Jaya markii hore waxay ka tanaasushay doorkeedii saarista jinniga waxayna rabtay inay ku noolaato nolol caadi ah sida qof caadi ah camal. Laakiin maadaama ay xiriir dheer oo qoto dheer la lahayd hooyada Jack ugu dambayn Jaya way aqbashay inay caawiso si ay u dirto ruuxaanta Jack. Jaya waxay bilowday inay diyaarsato qalabkii saarista ruuxaanta isla markaana waxay wacday Iban si uu uga caawiyo. Labadoodii waxay tageen makhaayadii halkaasna waxay ka bilaabeen hawshii saarista ruuxaanta. Markii Jaya ay shiday fooxa isla markiiba ruuxaanta Jack ayaa ka muuqatay gudaha goobtii makhaayadda. Iban wuxuu iska bixiyay silsiladiisii wuxuuna u ogolaaday Jack inuu galo jirkiisa. Laakiin markii Jaya ay soo saartay timo qabadkeeda wax aan caadi ahayn ayaa dhacay. Ruuxaanta Jack waxay ka baxday jirka Iban mana aysan awoodin inay mar kale soo gasho. Tani waxay ahayd waxyaab leh. Markay aragtay arrintan Jaya waxay soo xasuusatay waqtigii ay rabtay inay Iban u adeegsato si ay hooyadeeda u xoreyso. Isla wax la mid ah ayaa markaas dhacay. Ruuxaanta ma geli karin jirka qofka nool. Hooyadii ku jirtay goobtii maqaayada waxay mar walba ku celcelinaysay anigaa dilay wiilkayga. Isla markiiba Jaya way fahantay runta. Ma ahayn in ruuxaanta Jack ay rabtay inay sii joogto ee waxa diidayay bixitaankeeda waxay ahayd ku xirnaanta iyo xanuunka dadka nool. Iyagu ma rabin inay ka tagaan ruuxaanta wiilkooda. Jaya waxay kula talisay hooyada inay u ogolaato Jack inuu si nabad ah u baxo. Hooyadii waxay bilowday inay xasuusato wixii hore u dhacay. Waxay xusuusatay inay necday Jack sababtoo ah mar walba wuxuu jeclaa ku tiirsanaanta dadka kale iyo ciyaaraha. Jack marar badan wuxuu seexan jiray ilaa qorraxdu ay soo baxdo kadibna ayuu cuni jiray cuntadiisa. Hooyadu marar badan ayay canaanatay. Maalin maalmaha ka mid ah Jack si caro leh ayuu u tuuray qalabkii cuntada isagoo hooyadiisa si xanaaq leh u eegaya. Wuxuu ku yiri xitaa ma ii ogolaan kartid inaan si fiican wax u cuno. Hooyo iyo wiilkii waxay bilaabeen dood kulul ugu dambayntiina Jack isagoo xanaaqsan ayuu guriga ka baxay. Cuntadii aan dhammaan ayaa weli saarnayd miiska. Xilligaas hooyadu waxay bilowday is-eedayn. Waxay istiri haddii aanan canaanan lahayn maalintaas oo haddii aan u ogolaan lahaa inuu si fiican u cuno laga yaabee inuusan guriga ka bixin. Waxay rumaysatay in iyada lafteedu ay sabab u ahayd geerida Jack. Inkastoo Jaya ay isku dayday inay dejiso hooyadu wax nasasho ah ma aysan dareemin. Xanuunka qalbigeeda wuu sii kordhay. Iyadoo ooyeysa ayay ku dhawaaqday magaca Jack. Ruuxaanta Jack ee ag taagnaydna iyaduna way ilmaysay. Iban wuxuu la yaabay in saaristii ruuxaanta ay guulaysatay iyo in kale. Wuxuu eegay Jaya. Jaya waxay ka fikiraysay dhammaan wixii ay soo martay mana aysan awoodin inay jawaab siiso. Iyadoo maskaxdeedu wareersan tahay ayay Jaya gurigeeda ku soo noqotay. Waxay fuushay dabaqa sare waxayna shiday foox iyadoo u yeertay hooyadeeda. Weligeed ma aysan rabin inay rumaysato in dembiga, qoomamada iyo ku dheganaanta ay iyadu qabto ay sabab u yihiin inaysan awoodin inay hooyadeed sii dayso. Waxay istiri haddii ay sidaas tahay markaas wax walba way dhammaanayaan haddii aan anigu baabo. Ka hor intaas Iban hore ayuu u dareemay in xaaladda ruuxaanta ee Jaya aysan fiicnayn. Wuxuu tagay shirkadda Dibag si uu u soo eego. Si lama filaan ah ayuu u maqlay in Jaya ay doonayso inay meesha ka tagto. Si aysan Jaya si kedis ah uga tegin Jaya iyo Iban waxay marmarsiyo ka dhigeen in hooyadii Jack ay rabto inay xirto maqaayadda isla markaana aysan haysan meel kale oo ay degaan. Sidaas ayay ugu yimaadeen inay halkaas ku nagaadaan. Inkasta oo Jaya ay isku dayday inay ka baxdo way diideen inay baxaan. Ugu dambayn Jaya wax kale ma aysan samayn karin waxayna u ogolaatay inay hal toddobaad meesha joogaan. Inta ay joogeen Iban si joogto ah ayuu u muujinayay joogitaankiisa. Wuxuu mar walba la hadlayay iyada wax ayuuna weydiinayay xitaa marka uu albaabka uu furayo wuxuu isku dayayay inuu si qurux badan u istaago. Arrintaas Jaya way dhibsatay. Waxay go'aansatay inay banaanka u baxdo si ay u soo nasato. Laakiin si lama filaan ah Iban ayaa soo daba socday. Adkaysiga Iban dartii Jaya waxay bilowday inay dhagaysato sheekooyinkiisa. Iyada oo la hadlaysa ayay qalbigeeda u furtay. Waxay ogaatay in ay jiraan waxyaabo haddii ay si cad u sheegto aysan sidaas u daali lahayn. Dhanka kale hooyadii Jack waxay diyaarisay cunto tii ugu dambaysay ee ay u samayso ruuxaanta wiilkeeda si uu uga dhergo ka hor intuusan bixin. Markay weydiisay wiilkeeda haddii uu cuni karo Jaya madaxa ayay u ruuxday. Runtu waxay ahayd in Jack maadaama uu ahaa ruuxaan si gardaro ku dhimatay uusan cuni karin. Wuxuu kaliya istaagay isagoo daawanaya hooyadiisa. Kadib hooyadii Jack waxay ku tiri nabadgelyo tii ugu dambaysay. Markii ay wax walba u dhaceen sidii ay rabtay timo qabadkii Jaya madaxeeda ku jiray si tartiib ah ayay u baabaday. Jaya waxay eegtay Jack waxayna aragtay in ruuxaantu isna si tartiib
tartiib ah u burburayso. Ugu dambayn, hooyadii Jack way ka tanaasushay ku dheganaantii wiilkeeda. ruuxaantii Jackna waxay si nabad ah uga baxday dunida dadka. Markaas kadib, kaaliyihii Jaya ayaa ka codsaday inay bannaanka u baxaan si ay u wada hadlaan. Kaaliyuhu wuxuu u sheegay sheekadiisii hore. Markii ay yarayd jacayl indholaan ah awgiis, kaaliyuhu wuxuu dhalay gabar. Markii dambe, xilligii ay gabadhu dugsiga sare ku jirtay, waxay heshay shaqo nadaafad ah. Kaaliyuhu waxay qabatay ilmaheeda iyada oo shaqaynaysa. Ilmaha ayaa ooynaysa markasta, taasoo ka dhigtay in asxaabteeda shaqada ay ka xanaaqsanaadaan. Xilligaas, inkasta oo ay aad u adkayd, kaaliyuhu runtii waxay rabtay inay ilmaheeda koriso ilaa uu ka weynaanayo. Si ay nolol u hesho, wax kale uma baahnayn oo ay ku tagto shaqada iyadoo ilmaheeda yar guri ku reebtay. Markii ay habeenkii ay guriga timid, gabadheedu neefsashada way joojisay. Kaaliyuhu xitaa ma aysan garan sababta shilkii ilmaha uu ku dhacay. Dadka oo dhan waxay u maleeyeen in kaaliyuhu ay dishay ilmaheeda. Kaaliyuhuna waxay u maleysay in ay gabadheeda dishay. Sidaas ayaa lagu geeyey xarunta dhaqan toosinta. Maalintii ay ka sii daysay xarunta, Mijin waxay taagnayd bannaanka xarunta iyadoo sugaysa kaaliyaha. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee ay kulmaan. Mijin sidoo kale waxay ahayd qofkii keliya ee rumaysnaa in kaaliyuhu aysan gabadheeda dilin. Mijin waxay kaaliyaha ka caawisay inay ruuxaanta gabadheeda ayna siiso. Isla waqtigaas, waxay sidoo kale ka badbaadisay kaaliyaha niyad jabka iyo walwalka, waxayna siisay rajada nolosha. Laga bilaabo markaas, labadoodu waxay noqdeen saaxiibo aad isugu dhow. Sidaas awgeed, markay Mijin Jaya u dhiibtay kaaliyaha, kaaliyuhu si qarsoodi ah ayay go'aan u gaartay kaas oo ah: inkasta oo aanan ilaalin karin ilmahayga, laakiin waan isku dayi doonaa in aan Jaya ilaaliyo. Jaya waxay qabsatay gacanta kaaliyaha, labaduna waxay iska iloobeen isfahmi waaga ka dhex dhacay. Habeenkaas, dhammaan dadka ayaa isugu yimid si ay u qorsheeyaan sida loo wajahayo Hansig. Kaaliyuhu waxay baadhis samaysay waqti badan, waxayna ogaatay in Hansig uu shirkad ka furay Manila si uu lacagta u dhaqdo, kadibna uu lacagta u siiyey saraakiil sare si ay uga caawiyaan falalka xunxun ee uu sameeyo. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.